السلام عليكم. هدي aan ku weydiiyo su'aashan oo mawduucanagan maanta aan ku bilowno. Ma ii sheegi kartaa qaabka ugu fiican, ugu mira dhalsan, uguna sahlan barashada luqad kale? qaabka ugu fiican ee af kale lagu baran karo. طبعا haddii aad tahay qof kalaasiiki ah, qadiim yani, waxaad dhihi doontaa qaabka ugu sahlan ee luqad kale lagu baran karo waa verb to be iyo daraba zaydun amran, grammar iyo naxwe. gacmaha ayaad taagi doontaa. adigoona iisii raacin doono barashada carabiga waa inaad soo qaadataa kitaabka al-ajrumiya, sidaas ayaa carabi lagu bartaa. laakiin ii ogolow inaan ku dhaho isku day shay kale, sababtoo ah waa qaab aan ka dhahalnay khasaare iyo waqti lumis. luuqadna laguma barto daraba zaydun amran iyo grammar. wax meeshana dhigay maanta waa inaan qaabkaas weligana aan raaci jirnay. haddaba ii kaale, qaabka ugu sahlan ee luuqad kale lagu baran karo waa in aadan baranin luuqadaas. ma rabtaa inaad ku hadasho afka talyaaniga tusaale ahaan, af carabi ama ingiriis, ha baranin luuqadaas. oo maxaan samaynaa? wax kalaan samayn doonaa oon arki doona mawduucan. sixir yaroo xalaal ayaan mawduucan maanta kugula wadaagi doonaa cajiiba arrinka barashada luuqadaha. mawduucan sanadyo badan ayuuna kuu baajin doonaa. mar ayaan ka hadalnay mawduuc noocaan oo kale ah, laakiin mawduucanaga maanta wuu ka faa'iido badan yahay, kana kooban yahay, kana fiican yahay kii hore oo aan horey uga hadalnay. maanta dhacdooyin iyo arrinka hormuz iyo umuurahaas kama hadli doono, qodobkan ugama hadli doono. waxaan uga hadli doonaa mawduucan aan hubo dhowr mar in aad daawan doonto, weliba aad soo degsan doonto, sababtoo ah sanadyo badan ayuu kuu baajin doonaa arrinka barashada luuqadaha. haddaba ku soo dhawaada mawduuceena maanta. cumar inshaar, yaa ahlan wasahlan. al-ustaad salmaan maadow, aabbaha wax walbo kombiyuutar lagu dhaqaajiyo, naqshadayn iyo xirfad. shakhsi ahaan waxaan ku magacaabaa aabbaha after effectiga soomaaliyeed, waana ustaad jaamici ah. al-ustaad salmaan maadow wuxuu leeyahay xarun lagu magacaaba afoogi. asagaan kugu wareejin doonaa wax yar kadib, sababtoo ah wuxuu kuu sharxi doonaa koorso xaruntiisa aad tegayso. lacalla haddii aad isleedahay online-ka waxaan ka jeclay shay aan aniga xaadirayo, buugayga iyo qalinkayga aan qaadanayo, wax yar kadib ayaan kugu wareejin doonaa. fadlan haddii aad ku nooshahay gobolka banaadir, al-ustaad salmaan maadow wuxuu ku leeyahay xaruntayda aan naqshadayntan iyo xirfadahan soo socda aan kugu bari doono. ayaad imaanaysaa, si toos ayaad ii hor fadhiisanaysaa, anigaa kuu sharxaayo. wax yar kadib waan kuu soo noqon doonaa. ma rabtaa inaad barato xirfadaha ugu lacagta badan caalamka sanadkaani? bishaani xarunteena afoogi ee offline-ka ah waxay kuu diyaarisay fursad dahabi ah oo noloshaada wax ka bedeli doona. waxaan bilaabnay isdiiwaangelinta 5 xirfadood. xirfadda ugu horeysa graphic design oo aan kuu barayno si ka duwan sidaad hore u baran jirtay. waxaan iyadana markaas aan kugu baraynaa hab muuqaal ahaan sheekadaada ugu soo gudbin laheeday, u duubi laheeday, u ididgareyn laheeday, motion graphicna ugu abuuri laheeday. xirfadda afaraad oo aan kuu diyaarin iyadana waxaa waaye waa xirfadda ugu mushaarka badan tiknolojiyadda maanta. waxaan idin diyaarinay dhammaan casharadeenna waxay ku baxayaan si toos ah, weji ka weji, waxayna ka bilaaban doonaan xarunteena afoogi ee degmada Waaberi, wadada Moscow. xarunteena waxaa ka heli doontaa macallimiin khubaro oo dalka iyo dibaddiisa khibrad ka soo qaatay iyo jawi waxbarasho oo u diyaarsan in lagu soo saaro xirfadlayaal dhab ah. boosaska way kooban yihiin. noo imo ama naga soo wac lambarka shaashada kaaga muuqdo si aan kuu siino warbixin dhammaystiran. haddii aan gudaha u galno mawduuceena, ninkan aan sawirkiisa aragno waxaa lagu magacaabaa G. Marvin Brown. inta badan noloshiisa wuxuu ku bixiyey arrinka barashada luuqadaha, gaar ahaan luuqadaha looga hadlo koonfur bari aasiya, sida luuqadda looga hadla dalka Thailand, Korea, Japan iyo Shiinayska. afka Shiinayska ku hadla, mandariinka Shiinayska ku hadla. mudanahan Thailand ayuu machad barashada luuqadaha daneeya ku lahaa, isagoo weliba raaci jiray markii hore qaabka iskuulada maanta ay raacaan, grammar, ardayda in la dhaha xifdiya, in la dhaha luuqadda dadaal ku bixiya. laakiin kadib sanadyo badan wuxuu isla gaaray xaqiiqo ah, ardayda xitaa kuwa ugu caqliga badan ee grammarka iyo naxwaha xifdiyey yaqaanana laga yaabo imtixaanka in ay ku baasaan, kuma hadli karaan luuqadaas. adiga daliil waxa kugu filan, annaga ummad Soomaaliyeed maanta af carabiga iyo ingiriiska iskuuladana waa lagu dhigaa. ardayga waxaa laga yaabaa 12 sano inuu carabi ingiriis dhiganayo, laakiin kelmad carabi ingiriis una ku hadli karin. laakiin haddii aad qaado wadan carabi ama ingiriis looga hadla aad geyso, muddo kadib waxaad arkaysaa soo ku hadlaya, sababtoo ah wuxuu raacay qaabka mawduucan aan ku arki doono, xitaa asagoonan u qasdaynin. haddaba ninkan wuxuu isla gaaray xaqiiqo ah. sirtu waa aamusnaanta, wax kale ma ahan. luuqaddu lama xifdiye ee waa aamusnaanta. luuqadda keliya wuxuu ku leeyahay ama luuqadaha keliya aan sida fiican u bartay, sida dadka ugu hadla aan ugu hadlo,
wuxuu ku leeyahay waa luuqadaha aanan baranin luuqadaha aanan wax dadaal ku bixinin barashadooda muxuu ka wadaa arrinkan ikaale wuxuu ka wadaa qaabkan uu u bixiyey ALG wuxuu ku leeyahay automatic language growth kasbashada dabiiciga ee luuqadda koritaanka dabiiciga ee afka qaabkan cajiibka ALG waan arki doonaa arkaantiisa iyo sida uu u shaqeeyo maadaama adeegsan doona haddaba wuxuu qabaa luuqaddu ma ahan cilmi la baranayo ma ahan shay u baahan caqli maanta hadda adiga tusaale ahaan maraykanka haddii aad aado afkaas ingiriiska siyaasiyiinteena ay u malaynayaan inaad aqoon-yahantahay haddiiba ingiriis aad ku hadli karto maraykanka haddii aad aado waxaad arkaysa qofka ugu caqliga yar inuu af ingiriis ku hadli karo sababtoo ah arrinku shaqo kuma lahan inaad caqli badan tahay in kale qofkaas doqonka qaabka u raacay ayaan mawduucan raaci doonaa weliba dadka ugu fasiixsan luuqadaha kala duwan ee caalamka luuqadaas noocay ahaataba waa dadka miyiga iyo baadiyaha ku nool ee intooda badan aan waxba qori karin haddaba luuqaddu waa wax la kasbanayo taasoo ah wuxuu ku leeyahay mudanahan ha isku dayin in aad barato luuqad ee ku dhex dabaalo luuqadaas aad rabta in aad baranayso isku hareeree kuna dhex dabaalo ha welwelin sababtoo ah waxaan wax laga wada arki doonaa waxir kadib haddaba muxuu ka wadaa wuxuu ku leeyahay tusaale adiga hadda luuqadaada hooye ma aadan baranin ee waad kasbatay af soomaaliga ma aadan baranin iskuul uma aadin waryaa kaalay ma aadan baranin sida ay macnadadayowga kale af soomaaliga ugu hadlaan waxaana daliil ugu filan kugu filan hadda markale wax laga soo tago micnaha hadda canugaada yar ama walaal yar haddii uu kula dhashay oo kale weligii uma aadan xariiqin afkaada hooyo ee wuu kasbaday sababtoo ah 24 saac waxaa ku hareeraysan luuqadaas hooyo dad ku hadlaayo maalin walbana dhegtiisa waxaa ku soo dhacayo kelmad cusub jumlo cusub asagoona u qasdaynin uu baranayo tusaale ani wallahi waxyaabaha ka cumar ahaan igu keenay mawduucan inaan aad u danay arrinka luuqadaha waa wiilkayga yar Faysal 6 sano ayuu jiraa af carabigana si fiican ayuu ugu hadli karaa af soomaaligana si fiican ayuu ugu hadli karaa weligan cid u xariiqday ma lahan af carabi ama af soomaali xitaa iskool weli ma uuna gaarin sanadka soo socda ayuu geli doonaa iskuulka insha Allah laakiin carabiga soomaaliga ku hadli karaa sababtoo ah dhagihiisa ayay ku soo dhacayaan waana isla qaabkan insha Allah qaabka aan raaci doono ee luqadaha aan ku baran doono haddaba wuxuu ku leeyahay sida caruurta oo kale ayaan ula tacaamulaynaa annaga ka dad waaweyn markaan baranayna luqad kale wax dadaal wuxuu ku leeyahay kuma bixinayno ee waxaan isku hareeraynaynaa xaalad keenayso luqadaas inta badan waqtigeena in aan maqlayno dhagahanaga inay maqlayaan wuxuuna aad xooga u saaraa dhinaca maqalka ku dhex jirka dhex maquurashada luqadaas waxay kadib ayaan sidoo kale arki doonaa qaabkan wuxuu yahay haddaba haddii aan u imaano qaabkii aan soo sheegnay ALG luqada sida dabiiciga inay u karto wuxuu ku leeyahay asaga qaabka uu raacay ardadiisa wuxuu ku yiri maanta ka dambe ma jirto wax la yiraahdo xifdin iyo naxwo ajaanibta Thailandeyska baranayana waxaad ku bixinaysaan boqolaal saacadood dhageysiga luqada Thailand macnaha suuqyada ayaad aadi doontaan suuqada Bangkok iyo Pattaya ayaad aadi doontaan ingiriiska haddii aad baranaysaan waxaan dhageysanaynaa musalsalo aflaam ingiriis ah telefishinno kala duwan intaas baan samaynaynaa wax kale ma samayn dad ku hadlay baan dhageysanaynaa ardaydiisana wuxuu ka mamnuucay qawaamiista macnaha inuu canuga ardayga qaamuusada soo qaato kelmadan waa sidaas iyo kelmadan ii tarjun kelmadahan la xifdinayo waxaasoo dhan ayuu ka mamnuucay weliba cadowga koobaad ani waxaan aaminsanahay ka Cumar waana arkay ka tijaab ahaan cadowga koobaad ee barashada luqad inuu yahay graamarka ma rabtaa luqad inaadan baranin graamarka ka bilow ma rabtaa af carabiga dhan in aad nacdo sarf iyo waxaad ka bilowdaa naxwe ma rabtaa ingiriiska in aad nacdo oo ay noqoto luqad ugu xun caalamka oo macalinka ingiriiska markuu fasalka soo gala aad walwalayso verb to be iyo grammar qaado ama haddii aad rabto in luqadda aad jeclaato ani lacala haddii aan macallin noqonayo waxaan samayn kaliya shaashad yani xiisadda aan bixinaya waxay noqonaysaa shaashad kaliya musalsal ama waxaan kuu daari lahaa warbixin maalin waxaad iska dhegeysan lahayd oo ay ahaan lahayd xiisadda aad ugu jeceshahay waxa aad jeceshahayna waa la bartaa asaga wuxuu ku hadlaa mudanahan afka Thailandeyska oo weliba sida dadka native dadka u dhashay oo kale ay ugu hadlaan macnaha qofkii maqlaa wuxuu u malaynayaa Thailandeys inuu yahay sababtoo ah qaabkan ayuu raacay afka Japanese-ka Korean-ka Chinese-ka ku hadla weliba lahjadooda sababtoo ah isla qaabkan ayuu raacay Faransiiska iyo Jarmalka Isbaanishka ku hadla wadamada Yurubiyaanka markaan ka hadlayno haddaba mawduucanagan maanta waxaad ku soo koobi kartaa arrinkan haddii aad rabto barashada carabiga tusaale ahaan maalan luqadaas uu rasuulka na amray nagu booriyay in aan barano quraanka kariimka si aad u fahanto xadiis si aad u fahanto diintaada si aad u fahanto adigoonan u qasdaynin in aad barato isku hareeree
wax walba oo carabi sida مثلا agtaada inuu ka daaran yahay TV af carabi ku baxayo film fiican oo dad qaaqaawanayna ka soo baxaynin musalsal kelmada ka maqlayso majaajilo adigoo hawshaada iska haysto macnaha dhagahaada ay ku soo dhacayaan kelmada carabi ama luqad aad baran rabto waa qaabka ugu fiican uguna sahlan ee luqad lagu baran karo waliba waxaad ugu dhawaaqi doontaa qaabka ay ugu dhawaaqaan dadka meena afkaas ku hadla aragtidan mawduucan maanta ka hadlayna waxa xoojinayo waaqac dhulka yaala yani hadda adiga tusaale ahaan ugu yaraan waa taqaan qof Soomaali ah oo qurbaha aaday wadan Yuruubiyaan aaday luqad weligii una maqal sanad ama 2 sano markuu joogo waxaad arkaysaa soo ku hadlay afkaas halka adiga 12 sano aad Ingiriis baranayso laakiin aadan ku hadli karin af carabi aad baranayso laakiin aadan ku hadli karin sababtoo ah waxaad raacaysaa qaab aan dabiici ahayn laba kalmadood ayaad xifdisaa guriga markaad imaadana waad ilowdaa markaas ayaa kugu dambaysa berrina 30 daqiiqo aad ku bixisaa maalin walba kaliya laakiin markaad isku hareerayso mobile aad podcast iska dhigaysanayso shar yani ninka fiir wuxuu ku talinayaa in aadan isku mashquulin in aad fahmayso in kale mina maanta مثلا hadii aad rabto kale inaad barato af mucayn ingiriis carabi podcast carabi iska dhigayso ilaa xitaa maadan hal kalmad ka fahmaynin berri kalmad ayaad si u fahmaysaa maalinka ku xigo kadibna luqadda sida uu sheegay LGdaas macnaha si dabiici ah luqadda u koraysaa marka qaabka ugu fiican ee luqad lagu baran karo waa qaabkaas ma ahan grammar iyo wax la xifdinayo mawduucan maanta aan uga hadalnay arrinka luqadaha waan aaminsan waqti badan inuu ku baajin doono intaanu ku egyahay Umar Inshaar salaamu calaykum